السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بهذا channel كنا هاني يمان وأنا جوا شين حنان دقن هل كان جنا سقطان هو channel كنا هاني يمان إن ما أنت برامج كنا هاي نوجو سوق بندونا قصة أما شيكو ونلو ذاقي قف كم ذا أصحابتنا إن قصة لنا وقصة وجيه بدن له أما إن وجيه بدن قصوين بدن حنبار سنة أو فرفور دونا ذاني وحي يكون عاد جبر يويل bilowga wajiga horeeyo sheekadeena waxa ay qosaysaa wiil iyo gabar lagu magacaabo Asad iyo Asli. sida caadadayna ahaydna Asad iyo Asli ma ahan magacooda dhabta ah balse waa magaca anaga u xulnay laakiin sidaas oo kale magaca ismaaj gareynaya ay leeyihiin lamaanahan. Asli iyo Asad waxay ku noolaayeen dalkeena Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho xaafad kamid ah xaafadaheeda. waxay ahaayeen laba qofood oo isla koray waxana isla bartay isku xaafadna ku soo wada koray ku weynaaday dugsiga quraanka iyo iskuulka maadiga isla soo bartay oo isla soo dhameeyay. dabeetana waxay noqdeen laba qofood oo isjeclaaday oo jacayl iyo xiriir u dhexmaray inta ay wax baranayeen. waxay dhahdaa qisada qofkana la wadaagana dabcan waa Asli waxay leedahay aniga waxaan ku koray ama la koray family ka kooban 6 qofood waa 3 wiil iyo 3 gabdhood oo aniga aan kamid ahay iyo hooyaday aabahay. maan ahayn dad taajiriin oo la dhaho dadkaas waa taajiriin laakiin waxaan ahayn dadka noloshooda dad iska maareeyo oo nolol dhexdhexaad iskaga nool. sidoo kale tana Asad wuxuu ahaa wiil dariskeena asagana muusan qabin wax walaal ah oo la dhashay. Asad wuxuu la noolaa hooyadiis iyo ayeeyadiis hooyadiis dhashay waxayna ahaayeen dad dariskeena ayagana sidoo kale hooyadiis ayaa ka soo shaqeyn jirtay waxayna ku noolaayeen nolol iska meel dhexaad ah. Asad wuxuu lahaa hal cilad laakiin aniga ciladaas ma arkeenin. wuxuu ahaa wiil wanaagsan furfura dabeecad fiican leh waliba waxbarashada aad ugu fiican oo aad u daneeyo waxbarashadiisa. Asad wuxuu ahaa wiil dabeecad wanaagsan caawinaad badan anigana waxaan ahaa qof waxbarashada ay dhibto niyadna uma hayn jirin balse waxa ilaa heerkan dugsiga sare inaan soo dhamay gaarsiiyay. wuxuu ahaa Asad wuxuu si jir garab habeenkii wax uu ila akhrin jiray maalinta wax uu ila diyaarin jiray mar walbana wuxuu dhihi jiray oo niyadii ugu dhisi jiray waxbarashada waa guusha furaha haddii aadan wax baran malaga yaabo inaad meel gaartid. waxaan jeclay labadeena inaan jaamacada riyadeena ay ahayd inaan heer jaamacadeed isla gaarno balse xaalka marka uu meeshaas maraayo oo aan dugsiga sare dhammaan rabno oo inooga dhiman tahay dhowr waqtiyar markay ka dhiman tahay waxbarashadeena dugsiga sare inaan soo gabagabeeyno oo inoo dhiman tahay adiga imtixaanadii aan diyaarinayno oo ku jirno diyaarinta imtixaanada ayaa Asad hooyadiis ay xanuunsatay way xanuun guriga la soo jiifatay wuxuuna ahaa xanuun aad oo daran xanuunka hay ka dhaqaaqaysay waxna ay ka qabsan weysay shaqadii dhaqdhaqaaqa qofka kaliya familkaas oo ahaayeen waxay ahayd Asad hooyadiis maanta waxay soo fariisatay guriga si walba ay ahaato bilii ugu dambeeyay waxa caawin aniga waad ogtiin waxbarashada dalkeena Soomaaliya waa lacag oo waxbarasho firiya wadanka kama jirto bilii ugu dambeeyay maadaama ay ahayd Asad qalin jabintiisa dugsiga sare waxa caabiya aniga iyo asxaabtiisa oo ka dhiiban dhinaca maadiga waxbarashada iskuulka iyo waliba basraaciisa iyo wixiisa. sidii ayaan ku gabagabeynay dugsiga sare oo aan imtixaanada ku galnay waliba waxaan galnay kaalmihii ugu horeeyay ama kaalmihii kaalinta 1 iyo 2 iyo 3 ayaan kala galnay aniga iyo Asad. xaalka wuxuu sidaas ahaadaba Asad aniga way ii suurtagelaysay inaan waxbarashadayda sii wado oo hooyaday aabahayba way shaqeynayeen wayna awoodeen inay jaamacadeeda iga dhiibaan balse Asad waxay ahayd halka il oo gurigooda u dhaqdhaqaaqo hooyadiisna meel ayay soo fadhiisatay oo maanta iyada ayaa caawinaad u baahan. wuxuuna yiri waxaan rabaa inaan shaqeysto wadankana way adag tahay qofkii aanan
garab haysanin ama aanan ehelkiisa inuu ahayn dad lacag leh ama dad la yaqaano sida uu shaqo fiican ku helo waxbarasho fiican qofka haysanin. asad meelo badan ayuu shaqo ka raadiyay balse nasiib daro shaqooyinka waa loo soo diiday bilihii aan fasaxa ku jirnay inta dugsiyada markana loo soo xiray jaamacadihii aanan la furin ayuu shaqooyin raadsaday waxaana riyadiisa ahayd inuu gelina shaqaysto oo reerkiisa iyo jaamacadiisa ku maareeyo gelina uu waxbarto oo aan jaamacad isla wadno weligiisna waxay riyadiisa ahayd asad jaamacadiisa dhameeyo. hase ahaatee ma aysan u suurtagelin oo shaqooyin wuu waayay muddo dhowr bilood ee noloshoodan waxay sii noqonaysay mid sii xumaanaysa. aniga iyo asadna maanan ahayn dad saaxiibo keliya ah waxaan ahayn dad xiriir jacayl ka dhexeeyo umaan isjecleen labadeena inkastoo ahay xiriirkeena iyo jacaylkeena cishqul mamnuuc gadaal ayaan ka ogaan doontiin sababta ay ku noqotay cishqul mamnuuc. waxa xaalka sidaas oo ahaadaba waayay shaqooyin asiga munaasab u ah markuu guriga ugu soo laabto uu arko hooyadiisa oo xanuunsan oo daawo iyo dhakhtar u baahan maantana aan dib la shidan haddana uu xumaan jiray oo maalin walba uu niyad jabi jiray. waxaa la gaaray xilliyadii iskuulada la furi lahaa jaamacadaha iyo iskuulada dib loo furay. anigana familkeyga waxay dhahayeen jaamacadee rabtaa inaad dhigatid jaamacadee rabtaa inaad wax ka baratid jaamacadee iska soo diiwaan gelinaysa. anigana waan ka cagajiidayay sababtoo maan rabin waxaan rabay qofka riyadaas la soo bilowna yaraanteeni maalintaan 5 sano jirnay ilaa maanta inaan riyadayna isla gabagabeyno oo heerka wada gaarno labadeena. laakiin asad umay suurtagelin oo noloshiisa aad ay usii xumaanaysay anigana niyad umaan haynin waxbarashada heerkan maanta aan kasoo gaaran wuxuu ahaa qofka garab igu siiyey oo ahaa garabkayga oo igu dhiirigelin jiray. maantana asaga noloshiisa aad ay usii hooseysaa iska daa heer uu waxbartay waxaa laga yaabaa gurigooda hal maalintii in hal jeer wax laga cuno ama aanan dab laga shidinba. xaalka wuxuu sidaas u ahay asad wuxuu go'aan ku gaaray inuu shaqeeyo shaqadii doonta ha noqoto ama xamaali ha noqoto ama inuu dhul dhaqa ha noqoto waxay doontaba ha noqoto inuu shaqo un ka shaqeeyo wax kasoo galayaan. oday dariskeena ahaa ayaa wuxuu lahaa maqaayad uu magaalada ku lahaa suuqa bakaaraha. odaygii adeerka ahaa oo dariskeena ahaa ayuu u tagay axmed wuxuuna weydiistay shaqo inay ka banaan tahay wuxuuna ku dhahay maadhow shaqo nagama banaano laakiin anigoo fiirinaya noloshiina iyo reerkiina waxaan ku siinayaa shaqadaasna waa shaqo iska hooseysa oo aad ka shaqeynaysa shaqo walba oo maqaayad kasoo banaanaato ama ha noqoto wiil dhaqow ama ha noqoto inaad kan cuntada kariya caawisid ama ha noqoto inaad noqotid maxaa la dhahaa kan cuntada geegeeyo ada wax walba iyo wax maqaayadas kasoo banaanaado ma ka shaqeyn kartaa. haa waan ka shaqeyn karaa waxaana ka shaqeyn wuxuuna dhahay ma aha subax shaqo aad gelaysid waqtigeeda xisaaban yahay waxaad gelaysaa habeen subax duhur galab xilligii lagu baahan yahay. wuxuu dhahay okay waan ogolahay. macaashka meeshaas kasoo helana waa iska yareed oo ma ahayn macaash haddii la isku daro bishii intuu maqaayada ka qaato may goyneynin waxbarashada jaamacadiisa. asad sidii ayuu ku bilaabay shaqadii maqaayada wuxuunan wix meeshaas kasoo galana ku maareynaya reerkiisa. anigana waxaan go-aan ku gaaray inaanan jaamacad aadin waana waxbaranin balse isaga igumuu yeelin wuxuu dhahay no ilaa waa inaa waxbaratid balse aniga niyad uma haynin sidii ayaanu ku joogay waxbarashadii uga haray guri joogtana iskaga noqday. anigoo sidii ay gurigeygana iska joogo dhowr bilood laga soo wareegay asad hooyadiis xaaladiisana ay sideedii tahay oo ay guriga iska joogto xanuunsantahay mar dhakhtar loo sii wado marna laga soo wado asadna u yahay qofka reerkaas hooyadiis ayadiis buu dhaqdhaqaaqo oo daawooyinkooda iyo nolosha gurigoodaba bixiy nolosha guriga iyo daawadaasna uu ka maareyn jiray maqaayada odaga adeerka oo dariskeena uu lahaa. xaalka wuxuu sidaas ahaadaba waxaa gudbay sanad iyo dhowr bilood arintana ismay bedeleynin. maalin maalmaha ka mid ayaa aniga waxaa la dhahay waa inaad waxbaratid ama waa inaad guursatid maadaama ahaa qofka familkeenu ugu weyn.
ilmaha kaletana ay iga yaryaraayeen waxaa la gabar guur ay u joogtaa haddii aadan wax baranaynin oo aadan waxbarashadaas sii wadaynin waad guursanaysaa waxaana lagugu darayaa wiil adeerkaa uu dhalay oo qurbaha ku nool aniga aad iyo aad ayay iila xumaatay inay murug ayaan igu beertay arrintii waan baxay asad ayaan u sheegay waxaan ku dhahay areerka waxay igu leeyihiin haddii aadan wax baranaynin oo aad waxbarashadadiida waa lagu guurinaya waxaan isku afgaranay inaan waxbarashadeedii dib ugu noqdo familkii ayaan u imaaday waxaana ku dhahay okay waxayaan baranayaa asad wuxuu dhahay aniga nolosheena hadda ma maareyn karo waxna kuma ballan qaadi karo mana rabo noloshaan aniga ku noolahay inaad igula noolaatid balse walaalay ka xaliso waxaan rabaa inaad waxbarashadaada iskaga noqotid intay arrinsi ka noqonayso ama aniga wada ay iga furmayso reerkaa kusii madadaalisid inaad waxbarashadaada dib u laabatid arrintu wax sida saacada waan soo baxay waxaana u imaaday familkeeni waxaana ku dhahay okay waxaa rabaa okay waxbarashada ayaa dib kusii noqonaya ana marabay inaan guursado balse go-aanka reerkeena waa ay soo gaareen go-aanka wuxuu ahaa go-aan mar hore ay reerkuba soo gaareen oo aniga ayaa liigaga dhigayay qeyl inaan waxbarashada diiday ay tahay maadaama aan waxbarashada diiday guriga soo fadhiistana inaan guursado aniga ayaa marmarsimo liiga dhigayay balse wuxuu ahaa go-aan lasoo gaaray oo ay familkeyga mar hore gaareen wiilkii iyo adeerkay iyo aabahay hooyo iyo familka dhan ay go-aansadeen in aniga wiilkaas laygu daro waxaana laydhahay ma jirto haddaa wax baranaysidna waxaa baranaysaa adiga oo xaas wiilka adeerka intuu wax ku xareynayo uu fiirsi iyo wax ku xareynayo meesha joogu ku geysanayaan halkaan ay kuugu imaanaya guurka meeshaan ka dhacaysa intuu kaa wadanayaan waxbarashadaada waa sii wadanaysaa sababtoo ah matihid gabar reer dhaqayso oo nin cunto ka sugayo nin guri u fadhiyo matihid waxbarashadaada dib aad ugu laabanaysaa anigana waxaan dhahay maya ma rabi aniga inaan guursado diyaarno mihi inaan guursado hadda waxaan rabaa inaan lugahayga isku taago aan wax barto waxaana lidhaha wax ka hor istaagaya inaan lugahayga isku taagtid iyo inaan wax bartid toona ma jirto walaali gacaliso wiilkaas adeerkaan dhalaya lagu guurinaya go-aankaasna waa go-aan aniga aan gaarnay waxaa ka bedeli karta haba yaraateen ma jirto waan murugooday qolkeyga ayaan isku soo xiray meesha ayaanan uhayn ka bilaabay iyo murugo ugu dambeyntiina go-aan ayaan qaatay oo waxaan u tagay asad waxaan ku dhahay asad miyaha reerkeyga waxay rabaan inay igu daraan waxbarashadana may ila rabeen waxay rabeen marmarsima ayay ahayd waxayna rabeen inay igu guuriyaan wiilka adeerkay dhalay anigana ma rabay inaan guursado oo waa u tahay adiga ayaan ku jeclahay maalinta soo hana qaadna ilaa maantana waan is jecleen riyooyin ayaan isla lahayn waxaana dhahay dad saaxiibo isfahmaayo mana rabay nolosheeda qof aan adiga ahayn inaan u heeboyo ama nolosheeda kusoo biiro oo aan nolol la qaybsado haddaa reer la dhisayana adiga ayaan kula dhisanahay asadna wuxuu dhahay baay anigu waan ku jeclahay sidii adiga iyo jeceshaa ka badan ayaan ku jeclahay riyo walba aan leeyahayna adiga ayaan kula leeyahay maxaa la dhahaa horumar kasto aan rabana waxaa tahay qofka igu lamaansan aniga aan horumarkaas ku riyoonayo inaan isla gaarno maalintaa yareen qofkaa nolosha isla soo bilaano go-aan aan ku qaatay inaan noqonaysid aniga xaaskeyga caruurteyda hooyadooda aan noqonaysid qofka aan isla duqoono labadeena laakiin wax aan sameeya ma aqaani aniga maanta maku ii karin nololaan ku balan qaadaya oo intaa xabadka ku garaacdaan leeyahay gabadhan anigaa jecel waana isguursanaynaa oo aan familkaaga u tagayo ma jirto oo ma awoodi gacanteedana wax kuma jiro waxaana jira asbaabo badan oo reerkaayo aniga maanta ay igu diidayaan ha ahaato mid dhaqaale ama ha ahaato mid aniga nolosheyda ama ha noqoto dhan walba aniga reerkaaga may ka ogolaanayaan waxay igu tiri aniga waxaan ku iri okay asad aniga ayaa u sheegaya reerkeyga aniga u ilmeynayo waan isku dul oynay oo aan ilmeynay awoodeynana waxay ahayd inaan labadeena oyno oo keliya sababtoo ay awood kale gacanteena may ku jirin ilaaha awood iskale markaan ooyey ayaan ku dhahay anigoo ilmeynaya saas mi ahaa noloshan anigaa iskale aniga ayaana ku qanacsan aan noqdo aan kula baahdo ama aan kula dhargo sali aan kula seexdo
aan wax cuna ama aanan cunin ama wax walba ay noqoto nolosheena aniga ayaa ku qanacsan anigaana raali ka yahay inaan adiga nolol kula qaybsado qof nolosheeda go-aan ka gaari karana ma jiro aniga sidaa u noolaanayana aniga ayaa og anigana qosaysa reerkeygana wadaga waan u sheegay inaan labadeena isjecelnahay waxay ugu dhahay hadaa u sheegtid iyo hadaad u sheegin wax isbedelaya ma jiraan baayo anigana ma aqaan si aan qalbigayga kaaga jiro si walba ha ahaatee oon soo baxay waxaanan u imaaday familkeygii hooyadii iyo aabahay waxaan ku dhahay hooyo iyo aaba miya ahaa aniga riyaan leeyahay nololaan leeyahay rajaan leeyahay wiilkaas dariskeena oo asad ah ayaana isjecelnahay mana rabay aniga ninaan asaga ahayn inaan guursado ereygaas markuu afkayga kasoo baxay aabahay wuu xanaaqay hooyadiina sidoo kaleeto waxayna igu tiri sidee yaa waay qofka guursanaysid yaa jeceshahay yaa rabtaa waad dabdaran tahay ma guursanaysid wiilkaas guur iyo arrimihiisa iska dhaafay agtiisa xataa kama soo bixi kartid sababtoo ah ninkaaseeto noloshaada ma maareyn karo waxba ma haysto waana wiil aan aaba lahayn waana og tahay dariska oo dhan inay dhahaan aaba ma lahan wiilkaas oo aabihiisa lama yaqaano wiil aanan ninaan aaba lahayn uguma dareyno baahi walba iska dhaaf baahi asoo baahani xataa hadduu taajir yahay lagama yaabo wiilkaas aanan aabaha qabin inaan anaga kugu darno oo aad familkeena ceeb usoo jeedid ma fahamtay lagama yaabo inaad wiilkaas isguursataan wax walba ha dhahaane warkaas mar dambe haddaan ugu soo qaadidna kow ayaan kaa siinayna ee u yiri aabahayga inaad ninkaas familkayga kusoo dartana waxaa ii dhaanta inaan adiga ku duugo oo igu dhahay aabahay hadda arrintaas kaa maqlana adiga macal asaga waa iskuin dul saaraya xaalku wuxuu sidaas ahaadaba waan iska aamusay murugtii ayay kasii badatay shalay waxay ahayd sida arrintan reerkaaga ugu sheegi doontaa balse maanta arrintii intuu way ka xun tahay wayna ka murugo badan tahay inay familkeygaba igu diideen ay dhaheen adiga iyo asagaba waan iskeentilayaa duhur ayaana labadiina isla keen aasa haddaa arrintaas igu keentid ama ad igu soo qaadid ama xataa laga maqlo waxaas ma aha noloshaan mid la naasibto wiilkaasna lagama yaabo inuu lugta soo geliyo guri aniga aan leeyahay iska dhaaf gabar aniga aan dhalay inuu guursade xaaladii aad ayay igu xumaatay waan laabtay waa asad ayaan u tagay waxaana dhahay asad go-aan ayaan ku gaara labadeena inaan isguursan waxaan rabaa inaan ismasaafeysano wuxuuna igu dhahay maya abaayo aniga noloshaasi ma naasibto mana kulamana ogoli nolol aan familkaaga raali ka ahayn adigana kuu qalmi inaan kugula noolaado waan ku xanaaqay asagiina waan kasoo tagay waxaana noqday qolka guriga ayaan isku soo xiray raashin waan ka go-ay hurdana waan ka go-ay familna waan ka go-ay mar lay igu qayliyo iyo mar lay habaaro iyo mar lay caayo iyo mar aan guriga isku soo xiro ayay nolosheeda ahayd waxay sidaas ahaataba waxaa la gudbay waxaan sidaas ku jiray muddo 2 asbuuc ah أنا قلكي كصابح لبدا أسبوعا قلكي كصابحين أي أسد ويديس حالة تصيح ماتي وإينا جيريوتي وطيرب أيها وإماتي إلهي هاون حريستو أسد وحو نقضي قفك ليه مالو إرصدان أونا لهن أي يديسنا وحاوتي أبتياجي سأولهن maadaama ayayda marka hore ku madax adeegaysa inay gabadheeda la joogto maanta ma jirto qof ay la joogayso wiilkaana waa ay dayriyeen wareerka abtiyaashiisa kalama dhexeeyo wax xiriir ah hooyada ay ku dayriyeen laakiin ayayda ayaa noqon weysay qof gabarteeda dayraysa u garab taagnayda ayay waxay iska ahayd qof cad ah waynan awoodna uma lahayn maxay ku tiri wiilkeygiyo aniga intaa culays kugu noqon lahaa وأنا نولشيدي هذا كفكر له وعافيعني أنا ويلشيدي إسكلا جوجو ونسك أهدو أذيك أنا بالكيجيو واحد برشة هذه نولشاد تبسك جرعسو ونولشاد تبغو نقا أسد وحو كشقين جري ماشي حال كلمة جوهرة قالين هو يديس أيوه هنجري بس حتى وحب بلعبين مقاعد كشقي لبقلين ونولشيد ساف كرايو وحمل دكتو
maalintii dambe ayaan u imaaday asad waxaan ku dhahay aniga intuu wiilkaas guursan lahaa waxaan go'aansaday inaan isdilo sun ayaan soo gatay sunta dooliga sunta ayaan wato waxaan dhahay suntaan ayaa xabaaya waan isdilaya waana iga celiyay waxaana dhahay okay inta adiga kaligaas dili lahayd maadaama aan nolosheena iyo riyooyinkeena aan ka rumayn karin labadayna suntaa wada cabaynaa waana wada dhimanaynaa waan wada oyna markii dambena intaas soo fariista ayaan dhahay waay sababaa isku dileen haddaa isdilayna anaga oo aan labadayna go-aan ku gaarin inaan dhimano intaan gacanteena ku dhiman lahayn waxaan gacantooda ku dhimanayna anaga familkeena waanan iskorsanayna labadayna waxayna ku dhahay soo bax aniga intaan ahaya lacag yar oo aan kursaday adigana intaas mayinsido ahaa ma shaqaysido ahaa ninkeen waa iskorsan waan baxnay waan ismasaafaysanay aniga asadna waan issoo mehersanay waan soo laabanay gurigeeni ayaan kusoo noqonay aabahay ayaan u tagay waxaan ku dhahay aaba miya ama idili laheeda ama iska dhaafi laheeda aniga wiilkaas waan isu soo mehersanay waana isqabnaa waxaan ahay dad geeyaane muslin diina kala geenaysan ma jirto waxaan khuraafaadka ee ala wareegaysiina aniga waan kasoo horjeedaa waan jeclahay waana i jeceliyaa ninaanan weligay arkin oo aanan isjeclayn waxna nagama dhexeyn wuxuu yahana ana aqoonin weligiisna aanan la hadlin inta aan guursan lahaa waana ku noqon lahayd wiilkaasaa guursaday adiga ayay gacantaada ku jirtaa haddaan dilayso gacan ku dhiigla noqonaysid haddaana soo dhaweynaysid haddaana soo dhaweynaynin aabay wuu xanaaqay wuuna i garaacay gacan ayuu i qaaday hooyadii ayaana iga celiso waxay dhahay maxaad dilin inta adduunya aakhiro ku seegi lahayd ammaansii gurigaas nooga bax deera ayaana naga tahay annagana nama sheeganaysa annagana kuma sheeganayno qabrigeenana ma imaanaysid kaagana ma imaanayno ninkaas soo maracnaha maalinta ninkaas raacda annaga dhimata anigoo cagajeedayo oo ilmeynayo ayaan gurigeena kasoo tagay oo aa u malaysid 100 kiilo inay lugahaygu ka xiran yihiin guriga gadaal usii fiirinayo oona ilmeynayo waxaana noqday labada dhinac qofka gubanayo asad kama tegi karin oo wax ahaa nolosheeda oo dhan waxaanan ahaa haddii ansaga waayo qof aanan nolol dhanaysan reerkaygana sidoo kaleeto inaan ka tago aad ayay u adkeeday sababtoo waxay ahaayeen familkayga nolosheeda iyo garbahayga intaba arrintu waa sidaas ahado gurigayga ayaan kusoo laabtay waxayna ahayd nolosheedana mid adag ku bilaabatay aniga iyo asadna halkaas ayaan ka bilaabnay nolol aan nahay kaligiin isagoo aan wax xiriira lahayn iyo aniga oo wax xiriira lahayn waxaan isku noqonay wiil iyo waarid iyo saaxiib iyo jacayl iyo nin iyo naagtiisa intaba waxaan bilaabay shaqo anigana waxaan ka shaqayn jiray meel hotel ah aan nadaafad ka shaqayn jiray nadaafada hotelkaasi iyo sariiraha inaan goglo asagana wuxuu ka shaqayn jiray maqaayada waxaan isku keensan jirnay lacagteena waxaan kiraysanay qol iyo barsadiisa meesha ayaan ku nooleen muddo sanad iyo bar sanadii bar kadibna waxaan dib u bilaabnay jaamacadeena gelina waxaan shaqayn jirnay gelina wax ayaan baran jirnay ilaa aan jaamacadeena soo gabagabeynay oo aan qalin jabinay anagoo ah nin iyo xaaskiisa markaan qalin jabinay ayaan dhahnay waa inaan shaqaysano shaqooyinkeenana sidii ayaan usii wadanay waxaana lacagaheena meel ayaan dhiga jirnay oo waxaan ku kiisay jiray adeerka ahaa maqaayada uu ka shaqeynaya asad lahaa qaybna waxaan sameyn jirnay nolosheena iyo jaamacadeena waxbarashadeena baawraceena ayaan ku maareyn jirnay maalinta waxbarashada dhammeynana waxaan go-aan ku gaarnay inaan shaqaysano oo aan shaqo anaga aan leenahay aan abuurano labadeynaba maadaama aanan haysan qof karab noo noqdo iyo meelo sare inaan shaqo ka helno waxaan ku fikirayna inaan meelo sare dowladda aan galno ama meelo maxaa la dhahaa shirkado waaweyn aan ka shaqeyno balse intaa fikirnayaan dhahna waa anaga aan shaqo abuuri karin waxay doontaba ha noqotee waa inaan shaqo anaga aan leenahay aan abuurano nolosheenana halkaas ayay ka bilaabatay qisadeeni qaybteeda koobaad halkaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa waxaanan
qaybta labaad ee sheekadayna la socod wanaagsan. halkaas ayaanu kusoo gabagabeyn doonaa qaybtii koobaad ee sheekadayna la socod wanaagsan. qaybta labaad ee sheekadayna oo halkaas inooga sii socoto. waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina. please subscribe noo saar channelkeena haddii aad halkan soo gaartay lana wadaag asxaabtaada. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti dambe oo xiisa